aniga waxaan aad ugu xirnaa horyaalka Premier League wax kalena kuma jeclaan xamaasadiisa aad u kacsan horyaal xamaasadiisa aad u kacsan tahay kooxdan aad ugu taageerna waxay tahay kooxda Manchester United aniga Arsenal baa aad u taageera oo waxaan ka helaa qaab ciyaareedka Arsenal waan dareemi karaa dad badan markay Arsenal maqlaan way fahmi karaan ciyaaraha ay soo bandhigaan kooxdaasi aniga waxaan taageeraa naadiga lagu magacaabo Manchester United waxaan ku faraxsanahay Manchester dib haweenta lagu sameeyay waxaan ka mid ahay dadka daawado ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan horyaalka Ingiriiska oo ah horyaal aad looga xiiseeyo Soomaaliya waxaan taageerayay muddo badan kooxda Arsenal Manchester United waxaan taageeradeeda bilaabay waqti hore sanadkii 2003 ilaa hadda aan taageeraya waa naadi kaliya aan taageero naadiga Chelsea waa naadi oo fac weyn waxay ka mid tahay naadiyada oo koob ku guuleystay Premier League iyo koob kale oo Yurub sidoo kale waxaan bilaabay taageerada kooxdan xilli oo fog wixii ka horreeyay 2008 waxaan aaminsanahay sidii habeen hore dhacday oo kale hadii in horumar badan aan ka sameynayna xagga sportska waxa habeen hore dhacay arrin taariikhi ah oo macnaha totally dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan ay aad ugu farxeen oo xilli habeen ah lagu dheelay Stadium Collis oo xilli dambe lagu soo dareeray halkaas oo kumanaan qof iskugu imaadeen si nabad ku jirtana ku daawadeen si nabadoonna ku soo noqdeen halkaas waxayna u muuqatay sportsku inuu yahay mid ka had iyo jeer mideeyo maskaxda kumanaan qof oo hal meel u soo wada aadaan inay daawadaan ciyaartii habeen dhawata ka dhacday Collis Stadium Collis runtii dhalinyarada fiirsanaysa daawanaysay aan kamid ahaa oo safafka hore taagnaa dhalinyarada soo gashay iyo dhalinyarada ciyaaraysay iyo intaba waxaan aaminsanahay in aad isku fahmeen ma sha Allah waxaan rajayn doonaa in macnaha isdhaxgalkaas laga heli doono ciyaartoy wanaagsan oo isku xiran ciyaartoydaas waxay horumari doontaa kubadda cagta Soomaaliyeed gaar ahaan inay macnaha ka qayb qaadan doonto ciyaaradaha banaanka ah insha Allah بلوني وشقيا برشلي أدو وشقيا إسدحقلته كل شقيا جعلك أدو وشقيا إن أنت فرحت كوكلي وشقيا runtii boqolkiiba 75 wadanka dhalinyaro waaye dhalinyarada hadii macnaha isboortiga ay ka qayb qaataan caafimaadka jirkoodana uu fiican yahay qaabka maskaxdana uu fiican yahay marka run ahaantii isdhaxgalka dhalinyarada aad muhiim u tahay gaar ahaan xaafadaha sida degmooyinka waaweyn oo magaalada Muqdisho kale inta dhalinyaradii hadii isfahmaan isdhax galaan runtii waxaan aaminsanahay inuu amniga qayb weyn uu ka qaadan doono insha Allah